hello السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عمي سولو مقعه magacaygu maxamed akhuna aad baad mahadsantihiin khayr allah ka siiyo cabdi xafiid barnaamijka wadad aad buu wanaagsan yahay khayr allah ku siiyo walaalkii soo dhawo sidoo kale caawo fursad weyn bay tahay in aan sheekhaygii sheekh maxamed aan qadka kula kulmo asiin aad baan ugu mahadcelinaa waa ardagiis baan ahay inkastoo ni ogaan cami anigu xudugaal baan u ahay nimankan fikirkooda qallafsan ilaa iyo intuu socday iyo taatikada ay dadka maanka uga xadaan wax badan aan kala socdaa waa gartay bis waxaan rabay fikradaha isticmaalaan waxaa ka mid ah in waxa socda uu yahay xarbi caalami ah uusan ahayn mid Soomaali ku kooban qof kasta oo muslim ahna uu waajib ku tahay xarbigan caalamiga in ku qayb qaato waxyaabaha marka ay dhalinyarta yaryarta ay maanka kaga xadanay ka mid tahay waa gartay marka sheekhu waxaan rabay marka hore in fikirkan caalamiga ah ee al-qaacida oo urweynaha al-qaacida uu aaminsan yahay dilka haddii xataa dad muslimiin ay ku dhex jiraan in la wada dili karo macalgaaladooda fikirkaasi in mid qaldan yahay asaasan in culimada bayaaniyaan oo fikirka al-qaacida marka hore la daweeyo kadibna muslimiinta Soomaalidu si maskaxiyan bay u dawoobaan laakiin cunuga yar aaminsan in al-qaacida ay xaq u taagan tahay sabab qaldan ma ku karaysid ilaa wuxuu aaminsan yahay hooshii ka weynaad inay sax ku taagan tahay waa gartay marka maxaa lagu saxi karaa islaada marka anigu waxa lagu saxi karaa waxyaabaha ay isticmaalaan oo ay wax ku lumiyaan waxa kamid ah inay muxaadarooyin weyn ay qabtaan kadibna ay video clip ay soo duubaan ay dhexgeliyaan oo ay ku beer jiracsanaan dhayarto marka waxa lagu saxi karaa oo la mid ah in la helo ducaad dhaqdhaqaaqdo dadka dhaxmarto dhalinyarada yaryarta ah si gaar ah maskaxdooda ula shaqeyso waayo hadda sheekhu hadii uu muxaadaro iyo mu'tamaro u qabto waxa laga yaabaa hooyooyin waaweyn iyo odayaal inay soo xaadiraan laakiin daayirtii la luminayay inuu hadafka gaadhin marka waxay la tahay in maanka ay ka xadeen daayirto waxa kaloo jirta boqolaal kale oo dhalinyar ah ay weli ay soo gaarin laakiin ay ku soo socdaan fikirka maxaad ka leedahay raalle ahow cami raalle ahow marka waxaan rabay in ay jirto marka kubad dhaxdeena taalo ragaasi anaga kubadda haynoo yara dambayse ka waran wanaagga ay qabteen meelaha ay qabsadeen oo kala dambeyn iyo nabad ay jirtay sida hadda aanu sheegaynay oo kale taas maysan u lahayn in la sheegay inay wanaag ka shaqeeyeen fursad badanna aan la siinin sida halkan adoonal ay sheegayso haddii fursad weyn la siin lahaana dhulkoo dhan ay nabad kusoo rogi lahaayeen waa aragtida amatullah weeye waa fartiin soo gaartay laakiin wanaaga ay sameeyeen waxaan loo sheegi karin dhibka ay soo wadaan baa ka muuqdo oo naga hor muuqdo waayo nin tilaabsanayo biri xuduudda kasii gudbaayo wanaaga uu maanta sameynayo lama sheegi karo waayo musiibada uu faraha la seegalayo in gacmaha laga qabto u baahan baa noo sii muuqda aad baa umahadsan tahay sidaas oo kale fikradaas waxaa jawaabtii sheekh maxamed idriis baa laga dhalinsanayay waa mahadsan tahay waxaan jecelahay qof iyo laba inaan siiyo dabeedna barnaamijka aanu soo gabagabayno qof kaloo ku xiga asalaamu calaykum hello خدك حاجة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سولو ولا المقعة؟ أيوة حد دلمر. أهلا دلمر. فكر كي عبدي أنا عبدرو ميدو حن كدر لها قضى بدي أو شيء محمد عبد الأمل جزاه الله خيرا أو شيء إنا ميد كدرو. واقرتي. تاسو رجع معناها ما دام لي دولة هكوسو بيرانو على شقيانو ضد خوك إسكاديانو. raggu saddex qaybood ay isugu jiraan saan aniga aaminsanahay rag gadoodsan oo xanaaqsan oo rag inay ka carsadaan raba waa gartay rag ma taqaanay laga yaabo inay ama xukun doon yihiin ama dhaqaale doon yihiin oo barnaamij kala wata iyo rag lagu shubtay oo ma taqaanay aan meesha ka socota baan laga yaabo in wax badan ka ogeyn waa gartay marka rag lagu shubtay in laga daadiyo la wacdiyo dadkii ma taqaanay ahladooda dadka u wanaagsan loo diro taas ma taqaanay loo wacdiyo qolada hadda xukun doonkaana hadda waa dad Soomaaliyeed wax loo ogolaado oo dawladda aysan in hubka iska dhigayso gacmaha taagay inay wax u ogolaadaan ay dhahaan war isha waxay waatanahay ka soo qayb gala dawladuna ay waxa lagu dhaleecaynayo oo ay kow ka tahay ciidamada shisheeye iyo waxaan la yiraahdo dastuurka ay meesha ka saarto si nimanka ay u ogolaadaan
waa gar ciidamada shisheeye haddii wadanka laga saaro maalan hadday bilowgii barnaamijkii ku jirtay nu wasiir ka wareysanay waxa uu sheegay inay dowladdu aysan awood lahayn ciidamada shisheeye haddii la saarana ay dhacayso maaragtay in ay al-shabaab wadankii dib u qabsadaan dabeedna dib loo noqdo dhinaca kalena waxa uu shiiku noo sheegay sheekh maxamed idriis haddii ayagu ay hub ka dhigaan ciidamada qalaadba way iska tegi lahayn dhiigna ma daadan lahayn si fiican meesha dhib adaa ula dalmarow meesha dhibku ka tagan yahay waxay tahay ayagu waxay leeyihiin horta kow ciidamo shay meesha ka baxaan dowladduna waxay leedahay ayagu hubka ha dhigaano keebaa fudud baad moodeysaa labadooda dantad guudna ku jirta aniga waxay ila tahay hadda soomaalida ciidanka dowladda way awoodaan inay u yaraan un bilaba allah ka dhigay ay isdifaacaan ilaa waqti inay isdifaacaan way awoodaan bilaba allah ka dhigay bil iyo laba allah ka dhigay in loo ogaado bal dalmar difaaci karnay maanta ay diidaan war ay soo weeraraan markaasi adduunka oo dhan meesha la rabay in laga dalbado dalmarow markuu iftiin yaro kuu baxo haddaad tiraahdo waan riski garanaya dhibkeeda ay leedahay iyaduna ka hodhay laakiin waxaan jeclay inaan ku weydiiyo 2 bilood kadib markay iyagu haystaan maxaa dhacaya isleeda waxaan isleeyahay markii ay diidaan warkii oo mataqaanaaye ay dowladda inay kusoo biiraan diidaan hubkina dhigaan ay diidaan oo dowladduna ay aqbasho in ciidamada bixisay shariicada islaamka ay aqbasho markaas dadkana meel usoo jeesana markaasna in la wada xaqaa markaas oo la isku raacaya sababta dad badan waxay aaminsan yihiin manka inay gar leeyihiin dad badan aaminsan yihiin marka gartaas meesha ka baxaysa taasi maysan keeni karin dalmarow dowladda ayada curadka ee iminka dhalatay inay ayaduna halkaa ku kala tagno dabanaanu zero kasoo bilowno dib u noqono waa wax macquul oo imaan kara intaa ka fikir dalmar inaysan mataqaanaa awoodi karin dalmar waxaad ka fikirtaa oo keliya dowladoo meesha ka baxday safaarad aanaan lahayn wasiir aanaan lahayn cilaaqaad khaariji aanaan lahayn iyo annagoo zero kasoo bilowna waa mahadsan tahay dalmarkaasna wuxuu ahaa khadkii taleefonka ugu dambeeyey oon jeclaa inaan kusoo gebagabeeyo aada baan kaaga mahad celinayaa sheekh maxamed idriis culamaauddiinkii dadkii soomaaliyeed weli khadka taleefonka uu ka buuxo boqolaal email oonan akhrin karin oo waqti aanan haynin laakiin barnaamijyadeena dambe insha allah aan ku fiirin doono siyaasiyiintii waa dhageysatay waxaan jeclahay inaad kusoo khatintid markaa intaas aada soo khulaasaysid 10 qodob oo aada maxay aada ku bilowday insha allahu tacaala sida dadkii iloobay ay u xasuustaan tafadal sheekh hadaaye waxaan wax ka tilmaamay yani asbaabaha keenaya inay al-shabaab diidaan wada hadalka ama nabadda waxaa kow sida dadweynuhuba ka dhawaajiyeen go-aankii aan iyaga ahayn oo dagaal caalamiya oo qaacida iclaanisay ay qeyb ka yihiin qodobka labaad kaasuu ka dhashaayo waxa weeye wadcigan marka soomaaliya in maaragtay wadciga daakhiligahay uma aha priority maaha oo yani awlawiye uma aha meel wadcigiisa iyo xaaladiisa iyo sida laga dhigo qodobka saddexaad waxa weeye in dowlad la dhiso loo dhan yahay oo ummaddu ka tashato iyadana qorshaha kuma jirto taasna waxaa kutusaysa adeegyo iyo ummadii inay u sameeyaan xataa meelahay xakumeen ama iyagu ay maamulka ka noqdeen dee haddii halkaas dowlad islaamina waaba la isugu soo ururi lahaa ummadda soomaaliyeed o dhan dadku waa dad islaam jecelo halkaasunbaaba la isugu iman lahaa midda afraad waxaa weeye quluwiga oo qofkii markaad gaalaysiisid waxba uma ogolid sadaaqadaad ka tuurtay marka taasna inxiraafkaasna meesha wuu ku jiraa qodobka shanaad wuxuu ahaa dee rag iyagu amnigoodii shaksiga ahaa halisu ku jiro ama la doonayo ama isu arkay inaan dadka ku dhex noolaan karin ama caalamka ku noolaan karin marka caalamka o dhami ha ku jiro weye dhibkaas aan anigu aan ku jiro midda lixaad waxa weye xukuumadaha soomaalida iyada laftigooda aan saan sheegnay khiyaaraad badan ama ikhtiyaaraad badan aan lahayn iyo xorriyad badan oo dadka qaarkiis la hadli kara qaarkood soo dhaweyn kara kii mansab doonaya yani dhihi kara yani waxyaalo badan sameyn kara mubaadaraada oo ama initiatives ah oo ay xor u yihiin taasoo ay qayidayso yani waxaa keliya oo loo furo oo ah nimankan halala dagaalamo keliya bes ama wax kale aanay u furnayn taasna qayb bay ka qaadataa qodobka toddobaad waxaa weeye tharwa meesha waxaa ku jirta madaxtinimo iyo suldaa ku jirta oo nin madaxweynenimo haystaa dee ma sahlan inuu ka tanaasulo ma garad waxaa kale oo ku jira saan sheegnay gacmo ajnabi baa meesha ku jiro ka dhex shaqaysanaya isa ma garanays waxaa kale oo ku jira yani amnigan iyo qorshaha ugama mid aha alqaacida
in meel nabad ay noqoto oo dowlad oo noqoto oo nidaam iyo kala dambeyn iyo xiriir khaarijiya iyo adduunka kale bal in wax lala yeesho iyo wax lala wadaago iyo taasuna qorshaha kuma jirto. fowdada ayaa asala madax adeegii soomaalida laftigiisu meesha kama maqna saan sheegay oo waxa weeye qofku inaanu sahal uga soo noqon karin khata meesha mar hadduu ku talax tago. laakiin الرجوع إلى الحق فضيلة qofku waa qaldami karaa bini aadam weeye waxaa fiican inuu ismuraajaceeyo oo naftiisa u noqdo sidaasaana qofka muslimka laga rabaa. anigu waxaan leeyahay wax badan ayaa keenaya inaynu ismuraajacayno. ilaahina subxaana watacaala towbadiisu way furan tahay mar walba. marka raggaas dadkaas walaalaheena oo isku wada mid ma aha ee saan sheegnay wax ka qaldameen ama si wax isu moodsiiyey ama raggaas xataa hadda dilka culimada iyo dilka dadka in xaqdarro loo dilo inkiraya oo shabaab ka mida oo odayaashooda ka mida ama culimadooda ka mida waxaan leeyahay way furan tahay wadadu inay kasoo noqdaan الرجوع إلى الحق فضيلة. marka waxaan dhihi lahaa muraajacaha ku sameeyeen dib muraajaca dadkooda ha ugu sameeyeen ha ogaadaan inaan lagu sii socon karin jidkaas inuu qalad yahay in lagu sii adkaystaa inaanay sax ahayn. waxaa keenaya inaan ummaddu maanta ummadda Soomaaliyeed ummad muslima weeye caalamkao dhanna kama go'i karno. waxaa weeye dadkooda muslimo diintoodii ku dhaqmaan dhulkoodii ku ammaan ku helaan nabadgelyo ku helaan kala dambeyn ku helaan waa arrin daruuriya weeye. nebigu calayhi salaatu wasalaam dardaarankiisii u dameeyey markii yiraahdeen saxaabadu noo dardaaran rasuulka allah wuxuu yiri uusiikum bitaqwa allahi wasamci wataaca waxaan idiin dardaarmayaa ilaahay cabsidiisa iyo ismaqal iyo kala dambeyn. adduunku wuxuu ku dhisan yahay iyo aakhiradu ismaqal iyo kala dambeyn. ismaqal iyo kala dambeynna waa imaaro iyo dowladnimo iyo nidaam weeye. hal meel in wax ka soo baxaan hal meel in amarka laga qaato ummadaasu nidaam iyo kala dambeyn iyo ismaqal inay leedahay. taasina kuma timaado ilaa bitashaawur wada hadal iyo wada tashi bay ku timaada. washaawirhum fi lamri wa amruhum shuuraa baynahum. dadka muslimiinta talada waa wada leeyihiin qof kaligiisa iskama laha. marka ragga ku dhex jira shabaab oo ka damqanaya diintooda aakhiradooda ummadooda wax la wadaagi kara ha ogaadaan in weli fursad u furan tahay ku adkaysiga wadadaasna inaanay sax ahayn. marka waxaa gooni usoo hari kara markaa cidda keliya qorshaha wadata oo ummadoo dhamme meel ay uga soo wada jeesato. waxaan leenahay annagii idinkuba aan meel uga soo wada jeesan inagoo dhan ummadii dowladeedii shacabkeedii walaalaha xataa qaarkood shabaab hadda ka mid yihiin oo aan fikirkadaas qabin ummadda in la gumaado inay dowlad la-aan ahaato waan dareemi karnaa. dad badan ummaddu isku wada mid maha dadka meesha ku jiraan isku wada mid maha dad badan inay qabi karaan fikirkaas ay qabi karaan. maslaxadda ummaddu waxay keenaysaa maslaxadeena khaaska inaan ka hormarino maslaxadda guud oo ummadan u danayno waxay keenaysaa sulxiga dadka muslimiinta inay heshiiyaan dhulkooda ammaan noqdo. waxaa inoogu filan yani tusaale caalam alislaami oo dhan in gaalo rabto inuu weligiis shidnaado dadkiisana qaybna laaji'iin noqdaan qaybna wax la laayay noqdaan qaybna dad mutakhalifiin aan waxba baran noqdaan. 20 sano u dambeysay in ka badan 2 milyan oo caruur Soomaaliyeed oo gaaray da'dii tacliinta ayaan tacliin helin ayaan waxbarasho helin. bani aadamkana meelaha laga baabi'iyo way. qofka Soomaaliga oo isagu maanta aan ahayn dadka maanta ama ku tiirsan dad wax u soo diraa wuxuu helo $1 maalintii waa ka yaryahay dakhligiisu. $1 maalintii waa ka yaryahay dakhligiisu. dhulkiisuna khayr buu ka buuxaa maamulana way ku jiraan oo kuwa ama shabaab ama kuwa kaleeto oo maamulada kale ah hoostooday ku noolyihin. adigadaas shariica islaamiya baan dabaqayaa leh ayuu hoostaada ku noolyahay kii gaajada u dhimanaya hoostaadu gaajo ugu dhimanaya. marka miyaanay ka mid ahayn shareecada islaamka in ruuxa muslimka uu noolaado? miyaanay shareecada islaamka ka mid ahayn inuu wax barto? miyaanay shareecada islaamka ka mid ahayn inuu ammaan u saxdo nabadgelyo u saxdo aanu adiga xukumaya kaa biqin? miyaanay shareecada islaamka ka mid ahayn inuu cadaalad heli karo? anigu ilaa hadda ma maqal shareecada islaam meelihii laga xukumayay shabaabku ay xukumayeen waana waxa ugu weyn oo dadku la aamini waayeen. nabadgelyadaasuna inay nabadgelyo u noqon in qof walba aamin u yahay ninka meesha ka madaxa ee shabaab ee gobolka xukuma waa kan yare madax amiir yar weeye. amiirka yar inuu maxkamadda keeni karo oo soo doono uga ashtakoon karo
cidina aanay dib usoo raacanayn. inuu ra'yigu rabo sheegi karo amiirulmuminiin baa la khilaafi jiray oo la oran jiray, laakiin qofku inuu boqo inuu afka kala qaado ama uu shabaab mucaaradayo muqadas maaha, shabaab ama keyrkiis ama dowlad kale muqadas maaha. marka arrimahaas o dham waxay ka mid yihiin sharciga islaamka fulintiisay ka mid yihiin. marka waxaan leeyahay waxaa keenaya sharciga islaamka la dabaqo way keenaysaa in nabadda iyo dhulka muslimiintu deganaan u ahaado, dhulkii gaaladana uu maanta amni isaga la bido waa arrin ayaan daro muslimiinta ku ah. midnimadan inay saa u kala tafaruqsanaano ee dadka gaaladuna ay midaysan tahay waa arrin ayaan daro ah wey. marka waxaan leeyahay walaalaha walidiintooda iyo ka qaba aakhiradooda ama taageersan fikirkaas ama dhalinyarada ah inay dib isu muraajaciyaan, inay dib isu muraajaciyaan. dadka arrinkan aan waxba iyagu ka gelina qorshe ay ka tahayna soomaalidu inay meel uga soo wada jeestaan oo dowladnimadooda iyo midnimadooda iyo qarannimadooda iyo diintooda iyo sharaftooda ilaaliyaan. sheekh maxamed fadlan ma noo dulmari kartaa dardaarankii rasuulka sala allahu alay wasalam fii xaji lwadaac, qodobadii cuslaa ee sharafta badnaa uu noogaga dardaarmay intuusan teginin fadlan. nacam, nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadiisa xajat lwadaac oo ahayd xajkii uu ummadiisa ku sagootiyey bishii dilxija, kadibna saan ognahay nabigu alay slam rabiic alawal buu dhintay, waa 3 bilood taqriiban muddo ka dambeysay. dardaarankii ugu weynaa nabiga calayhi salaatu wasalaam 3 meeloodna uu kaga khudbeeyey, carafa wuu kaga khudbeeyey, minana wuu kaga khudbeeyey, maka dhexdeedana wuu kaga khudbeeyey. nabigu calayhi salatu wasalaam wuxuu ahaa dadka iigu soo yeera buu yihi, kulligood dadkao dhan iigu soo yeera, istansit innaas, dadka iigu soo yeera, ummadii xajiyeysa 100 kun ka badana la xajiday, iigu soo yeero dadkii o dhan buu naaqadiisa ama hashiisa ful nabigu alay slat slaam. ayu yowmin hada buu yihi, maanta maxay tahay, waa maalintee? way aamuseen saxaabada. ya maalin xurma ashhurul xurma miyaanay ahayn? haabay yidhaahdeen. bishanu maxay tahay? way aamuseen, waxayba ka baqeen culayska su-aasha in wax kale nabigu alay slam sheegi doono. waa gartay. alaysa bishahri lxaram bi bishii xaramka ahayd mawaanay ahayn? ha. makaankanu xagee yahay? makaanka xaraamka moona ahayn? ha. markuu intaa ka hubiyo ayuu yihi dhiiggiina iyo maalkiina iyo cirdigiina xaaraan buu idinka yahay, ka xurmati yowmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada. marka wixii ugu weynaa alaa laa tarjicuu bacdii kufaaran, gadaashay gaalnimo ha u noqonina, yadribu bacdukum riqaaba bacdi, qaarkii qaarka kale uu dilo qoorta ku dhifto. marka ama aan siyaasad ku banaysano ama aan wax kale ku banaysanne ma banaana arrinkaas, ama aan gaalaysiin ku banaysan arrinkaas arrin banaan ma. marka fikirkan alqaacida qabtana fikir qalada wey oo dagaal caalami ah baan ku jirnaa. marka meel walba waa in la shidaa oo la huriyaa, sax maaha arrinkaas. muslimiintu waxay u baahan yihiin inay diyaar garoobaan, waaciduu lahum ma statactum. waxay u baahan yihiin inaad midayso, waxay u baahan yihiin inaad dhulkooda iyo nidaamkooda iyo qiyaadadooda midayso. waxay u baahan yihiin hal dowlad oo hogaaminaysa ama hal nidaam oo hogaaminaya, iska yaac maaha hawshu. marka waxaasoo dhani way ka horeeyaan inay cadowgooda weyn waajahaan. cadowgu wuu diyaarsan yahay, wuu midaysan yahay, wuu nidaamsan yahay, mawjeeda. marka nabigeena alayh slat slaam dardaarankiisu ugu weynay wuxuu ahaa gadaashay ha ku noqonina gaalnimo, qaarkiin qaarka kale qoorta ku dhifto. waxa maanta ugu darana oo ina haystana taas weye. marka waxaan leenahay walaalaha weli diintooda ka rajo qaba oo arinkaas ku jira oo hawshaas ku jira, lagu keeni maayo khayr ummadda soomaaliyeed in laga dhigo midna waa murtad, midna waxa waye munaafiq, midna waxa waye jaasuus, midna waxa waye gaala u shaqay, midna waxa waye hay-ada u shaqays. ma lagu keenay dhulka soomaaliyeed dadku inay amni u noolaadaan, u ogolaado amnigu waa qiimu leeyahy. yani inay arrintan xujo aan jirin tahay xataa waxaa kuu tilmaamaya ciidamada ajnabiga xaggee joogaan. yani dalka waxaa leeyahay ina dagaalamo, ciidamada ajnabiga koonfur iyo xamar bay ku kooban yihin agagaarkiisa. hargeysa ma ciidamo ajnabiyaa jooga, boosaaso ma ciidamo ajnabiyaa jooga, garowe ma ciidamo ajnabiyaa jooga, gaalkacyo ma ciidamo ajnabiyaa jooga. maxaa loogu diidan yahay inay deganaato? maxaa ugu diidan tahay inaad dadkeeda, dad soomaaliyeed way iyaga u garabsato, cadowga kale ugu garabsato? maxaa kuu diidan? kulligood ma gaala? kulligood ma dad aan maaragtay lala hadli karin ba? waxa mas-uul meesha ka ah iyo waxa maamul ka ah oo dhan ma gaala?
fikirkaas waa fikir marka qaldan ee takfiiriya. haddaanay gaalo ahayn maxaa kuu diidaya inaad dad soomaaliyeed weeye oo kula fikira ee gaalada intaad iyaga kaxaysato keliya intaad tegi lahayd aad ka hortagto. marka arrinkaas walaalayaal arrin saxa maa dadweynuhu inuu ogaado wey. ciddii maal ku taageerta ama naf ku taageertana dembi iyo lacnad bay ku jirta, waayo qof muslima dhiiggiis oo la daadiyo ayaa ilaahay adduunka o dhan u rugi karaa. marka arrinkaas waxaan leeyahay ilaahay ha looga toobad keeno, fikirkaasna ha laga hortago. fikirkaa gaalaysiinta ah, fikirkaa ummadoo dhami khaa-in inay tahay, fikirkaa dalka inaanu degin oo waxba dowladi ka jirin, fikirkaa ah qof allaale qofkii iga hor yimaado waa inuu nafta waayaa. fikir saxa maaha, fikir diiniyana maaha, fikir qur-aan iyo sunno ku dhisanna maaha. marka waa in laga toobad keeno. waxaana u dirayaa fariin dad badan oo walaalaheena oo ku jira hadda magacan al-shabaab hoos harsanaya, laakiin aan ognahay inay inkirayaan fikirada qaar ka mid a ay al-shabaab ku socoto, oo sida dilka dadka aan loo aabayeelihayn, sida dalku inaanu degin ama waxooba aan laga wada hadlin, ama ummadda soomaaliyeed aanay wada hadlin, ama aan maaragtay dee sidee u midoobi karna xataa aan laga wada hadlin. dadka arrimahaas aaminsan waxaan leeyahay laguma sii adkaysto qaladka iyagana kasoo noqdo. fariintaasaan leeyahay. waxaana ilaahay subxana wa tacaala ka baryayaa inuu ilaahay qalbigooda geliyo. waxaan kaleeto oo ku lifaaqaya culimadu qolana uma xaqlinayso, qolana lama jirto, xaqay la jirtaa. annaga cidna soo karaysatay ma jirto, cidna ijaaratayna ma jirto, dowlad uma shaqayno, mushahar kama qaadano, wax kagama dooneyno, cid kale kagama dooneyno, shabaabna kagama dooneyno, cid aan kaga dooneynaa ma jirto. waxa weeye kelimada ilaahay bay u taagan yihiin. maxaa dhacay? ilaahay baa ballantaas ka qaaday oo yiri xujada ilaahay baa la qiyaa, siduu iyo nabigu alayh salatu salaam ilaahayna uu ku amray qul hadihi sabiili adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacanii wasubxaana allahi wama ana min almushrikiin waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan. jidkaas weeye jidkaa culimadu ku dhimanaysaa ee lagu dilaya. xaras ma laha, dad ilaaliya ma laha, xujadaas bay haystaan keliya. ummadayna la doonayaan khayr. kelimada xaqa ah waxay naftooda u biinaynayaana waa kaas laftigiisa doonaya dhiig xaaraana inuu daadiyo in laga joojiyo. marka unsur akhaaka daaliman oo madluuman haddii uu maaragtay waanada iyo walaaltinimada ku keeni maayona ummadda waa inay gacanta iskaga qabato, isagayna dan u tahay in laga qabto dulmiga iyo dilka in laga qabto. naam, waa gartay sheekh maxamed idriis, ilaahay subxana wa tacaala ha ku xifdiyo adiga iyo walaalaha iyo culamaa diinka soomaaliya meel kastoo dunida ka joogaan. saacadda ingiriisku waxay tilmaamaysaa 1:00 oo 20 mirir dhiman. in badan baan halkan fadhinay, intaa in ka badan waan insiin lahayn, laakiin insha allahu tacala waxaanu jecelnaha kan kiisa ku xiga inaad kaga dhargi doontaan topic kale iyo maxay tahay barnaamij kale oo xiiso badan haddii ilaha yiraahdo. waanu jecelnaha inaanu diiradda mar labaad ku saarno dhibaatooyinka soomaaliya ka taagan iyo sidii loo xalin lahaa, mujtamaca soomaaliyeedna la siiyo ayaga mafaatiixda loo dhiibo iyo awoodoo la yiraahdo dadkan iyo dalkan iyo diintan baadaa iskale, adiga ka mas-uul ah. dowladda xaqiiqatan la sheegaya ay tahay shicibka soomaaliyeed ayagoo kaalmaysanaya culimmadooda ku hagaysa ilaahay dariiqiisa iyo sunnada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dad aada iyo aada u fara badan. waxaana jeclahay inay dulqaadataan, maxaa yeelay barnaamijkan dad aada u fara badan ayaa isku soo dubariday. dadkaasoo dhan waxaan ka hormarinayaa allahu jala jalaaluhu muslim naga dhigay, suurtana geliya inaan caawa hawada ku kulanno. haddaba dhinaca puntland waxaa naga caawiyey wariyaasheena tiam uu nuux birjeeb uu hogaaminayey oo howl badan u maray inay wasiirka iyo sheekh bashiir axmed salaadba soo wareystaan, weliba xili dambe oo habeenkii ah. aad baan ugu mahad celinaynaa. dhinaca nairobi waa xamdi kadiye iyo tiimkeeda aad baan ugu mahad celinaynaa. sheekh maxamed ibraahim shakuul oo cajaladiisii weynay in badanna nala dadaalay, aad iyo aad baan kaaga cudur daaranaynaa, waana kuu mahad celinaa fii miisaani xasanaatika. koonfur africa waa wariya deeq darajo oo isagoo halkaa noo jooga daa'iman nala soo daaya warar iyo barnaamijyo xiisana. aad baan kugu mahad celinaa adiga culimaaddeenkii kula joogay. qeybtaadi labaad nala soo dayn weyn waqtigoo naga cararay awgeed. stuudiyaheena muqdisho waxaa wararka barnaamijyada nooga soo diray cabdulaahi xirsi kulmiye ayaa nooga soo diray. aad baan ugu mahad celinaya. waxaan si kaleoo gaara ugu mahad celinayaa wasiir ku-xigeenka difaaca qaranka soomaaliyeed ama wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga cabdiraxmaan dheere. allahu subxana wa tacala ha ku xifdiyo. aad iyo aad baa noola dadaashay, waqtigaagana waan kaaga mahad celinayna.
istuudiyaheena halkan caawa ciduuma kala haranin waa ustaad maxamed biibaaye waa cali naaji waa cabdirashiid rashka waa ninka la yihahda maxamed saciid asaxaaf master qoslaaye ayaa na caawinaya farsamada oo halkaa nala joogay aad iyo aad baan ugu mahad celinaya la-aantoodna barnaamijkan ma suurtageli lahayn saaka aroortii bayna soo galeen raggaas badankoodu ilaa haddana waxay u joogeen inay aniyo adiga ay barnaamijkan noo suurtageliyaan oo hawada noo maran waxaan kaloo u mahad celinayaa soo saaraha barnaamijkan iyo barnaamijyo kale oo fara badan oo tv universal ka baxa mudane madaxa techniciankana ah cabdallah mudhir oo aad iyo aad ugu mahad celinaya oo asagoo isku soo xiray culamadan iyo siyaasiyiintan iyo waxaan o dhan aad baan kugu mahad celinayaa sheikh mar labaad waxaan u mahad celinayaa agaasimaha tv-ga universal iyo weliba xamduuni madaxa financialka oo labadooduba 4 saacadood 3 saacadood bar ilaa 4 saacadood hawada barnaamijkan inuu ka baxo u istaagay isla mar ahaantaana ku dadaalay in uu bil walba 20keeda ilaa 25keeda barnaamijkan arrimaha bulshada special aan u bixinay aanu ogaga hadalna halkan si loo diirada loo saaro nabadgelyada iyo dib u dejinta iyo dalkeena sidii loogu adeegi lahaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdixafiid maxamuud jaamac garabkayga waxaa fadhiya sheekh maxamed idriis jazaaka allahu khayr sheekh maxamed idriis allahu subxana watacaala ha ku karaameeyo qabrigaagana ha nuuriyo aad baan idinkugu mahad celinaynaa intaanu kanoo kale dib ugu kulmi doono taqwada ilahi iyo midnimo asalaamu calaykum waraxmat ullah